السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسر بعد الجنال كنا BMA Production وأنا جوا BMA هاتنا وحنيدين لو ذا جدونا سد application أو أن أسوقاته لو ذا كن إلى بعتنك أنت أنا بلابين كهر هو بإن السبسكرايب صارتي جنالك قبل كان أتفرتي هدي مقال كان هذا مساتون لايك صار وهدي أتكه شيء هدي أذن كهلنا ديسلايك صار سي أنا هوري وقصنا إن شاء الله. application كواد وسبليت كلاود وابليكيشن كو سهلايو inaad laba music aad hal mar wada daarato ama aad dhageysato inkastoo aan macquul ahayn inaad laba jiho aad hal mar wada aado sidaas darteeda application-kan wuxuu ku fududeynayaa inaad adiga iyo saaxiibka aad hal mar wada dhageysan kartaan laba music oo kala duwan adigoo adeegsanaya headphone-kasan ognahay wuxuu leeyahay midig iyo bidix tusaale adiga waxaad dhageysanaysaa quraan saaxiibkana wuxuu dhageysanayaa nashiido hal headphone ayaad wadaagaysaan waxyar waxaan idin tusayaa sida aad u isticmaali lahaydeen application-kan ugu horeyn soo kacso application-ka Split Cloud waxaad arkaysaa laba qaybood qayb kore iyo qayb hoose si aad cod adiga leedahay aad ugu soo darato waxaad taabanaysaa calaamadan icon-ka ee searching-ka haddii aad online tahay waxaa laga yaabaa inuu music asiga wata kuu soo qabto marka saddexdan option mid ayaad ka dooranaysaa markaad ku soo darato waxaad taabanaysaa calaamadan icon-ka kore waad u jeedaa qaybta hoosena isla sidii ayaad samaynaysaa application-ka wuxuu ku fiican yahay earphone gaar ahaan kuwa bluetooth-ka leh sababtan waxay tahay kan kore wuxuu soo qabanayaa dhanka bidix kan hoosena dhanka midig ayuu soo qabanayaa application-ka labaad waa Screenshot Go application-kan wuxuu kuu ogolaanayaa inaad si fudud u raadiso screenshot-ka aad qaaday sidoo kale wuxuu kuu sahlayaa inaad kala soo dhex bixi karto qoraalada ku dhex jira sawirka ama screenshot-ka sida Google Lens asna waa application cajiib ah inkastoo uusan ka mid ahayn saddexda application ee aan soo qaadanay haddana bonus ahaan ayaan u soo qaadanay midda kale isma dhibeysid si fudud ayaad u qaadi kartaa screenshot-ka application-ka saddexaad waa Tranit oo ah application fasirayo luqadaha kala duwan micnaha ma ahan inaad qoraal soo koobiyeyso kadib aad luqad kale u bedelato application-kan adigoo dhex dabaalanaya social media-ha ayaad kaliya ku aadinaysaa qoraalka aad rabto inaad luqad kale u bedelato tusaale yar ayaan idin siinayaa fariintan af Turki ayay ku socotaa waxaan rabaa inaan u bedelo luqadda Soomaaliga ileen ma fahmayo af Turki Soomaa kaliya icon-kan ayaa soo qabanaya anigoo ku aadinayo qoraalka waad u jeedaan inuu af Soomaali inoogu fasiray waxaad ogaataa xagga translate-ka in af Soomaaliga uusan dhamaystirnayn waxaa laga yaabaa in erayo qaar ay si qaldan kugu fasiraan waa application cajiib ah inta ayaa ku joojinaynaa muuqaalkeena mar kale waxaan idinka codsanayaa inaad channel-ka subscribe saartaan lana sii wadaagtaan asxaabtiina waa mahadsantiin dhammaantiin